dagaaladan oo u muuqanaya kuwa aad u culus ayaa mar kale waxay dib uga soo cusboonaadeen qaybo ka mid ah waqooyiga magaalada Muqdisho kuwaasoo shalay gelinkii dambe ilaa iyo maanta uu xoogoodu ka dhacayay xaafado ka tirsan degmooyinka Kaalaan iyo Shibis waxaana dagaalku u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo ururada Xisbul Islaam iyo xarakatul shabaab al-mujaahidiin oo iyagu isgarabsanaya dhinacyadaas horeyna ugu dagaalamay isla aagagan iyo xaafado kale oo xamar ka tirsan dagaaladan ayaa dhaliyay qasaare naf iyo maal bay isugu jira oo soo gaaray dadka rayidka ah ee iyagu dushooda lagu dirirayo waxaana jirtay in tiro dhimasho ah oo gaaraysa ilaa iyo 15 ruux oo dhammaantoodba dad rayid ahaa inay ku dhinteen dagaalkii maantay oo kaliya iyadoo dhaawacuna uu buux dhaaf ka dhigay cisbitaalada shaqeeya ee magaalada Muqdisho dagaalkan maanta ayaa saameyntiisu waxay gaartay xaafado ka tirsan degmada Yaaqshiid halkaas oo ay gaarayeen rasaasta ay dhinacyadu isku adeegsanayaan oo ay ku jireen madaafiic mararka qaarkood lagu lifaaqayay hubka la isku ganayo Sheekh Muuse Caraale oo ka mid ah mas'uuliyiinta ururka Xisbul Islaam ayaa dhinaciisa sheegtay inay dagaalka guulo ka gaareen isagoo saxaafadan u sheegay inay la wareegeen xarumo ay hore dawladda u joogi jirtay Sheekh Muuse Caraale ayaa intaas waxa uu ku sii daray inay ciidamadiisu ku sii siqayaan dhul kale oo ay joogaan ciidamada dawladdu sidoo kale Sheekh Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacade oo isna ka tirsan dhinaca dawladda ayaa isna shir jaraa'id oo saxaafadda u qabtay ka sheegay inay iska caabiyeen dhinacyada dagaalka kala soo horjeeda isagoo laakiin Indhacade aan soo bandhigin meydad uu sheegay inay ka dileen ciidamada ka soo horjeeda oo uu saxaafadda hore ugu ballan qaaday hasaatee waxa uu ku adkaystay inuu mar kale soo bandhigi doono ilaahay waa maanta shalay dagaalkan shalay iyo maanta aad bay ugu jabeen jab weyn baa ka gaaray ilaahay wuxuu mahadcelinaynaa shalayto dadkii ku dhintay waxaa ka mid ah dad ajnabiya kolley waa loo soo bandhigi doonaa saxaafadda baaritaan iyo maaragtay qaarkood in maaragtay DNA in laga helo ay suurtagal noqoto ayaa la isku dayaa haddii alla qadaro waxaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed inay diinkooda iyo sharafkooda iyo maalkooda iyo cirdigooda difaacdaan nimankaani waa duufaan meel haddii duufaan ku tacdan waxba ugama karo marka way u baahan tahay in duufaantaa hadda laga hortago oo la iska celiyo oo lama oga qasaaraha dhabta ah ee kala gaaray dhinacyada dagaaladan ku lugta lahaa lamana xaqiijin karo sheegashooyinka soo kala horjeeda iyadoo xaalka dagaaladanina ay u muuqdaan kuwo isjiid ah markaad eegto siday qodobba mar meel u qabsanayso hase yeeshee waxay sare u sii qaadeen oo kaliya dhibaatooyinka soo gaaraya dadka rayidka ah ee iyagu ku sii haray xaafadaha qaar iyadoo ay sii kordhaysana cabsida ah in xaafado kale oo dadku ay hore u deganaayeen ay barakac kale ku keento si kastaba ha ahaatee dagaalka maanta ayaa isagu daba joogay kii shalay galab isla goobahaas ka dhacay ee dhexmaray dhinacyadaas dagaalka maanta isaga soo horjeeday kaasoo geystay inta laga warqabo dhimashada ilaa iyo dad ka badan 10 ruux iyo dhaawac soo gaaray tiro 40 ruux ka badan Cabdinuur Muude Al-Cadaala telefishinka Universal xubnaha ka tirsan dawladda ku meel gaarka Soomaaliya ayaa deeqa kala duwan